iyadoo maalmihii ugu dambeeyay lisla dhaxqaadayay warar sheegaya in eelboorka degmada Baraawe ee caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay biyo qaadeen ayaa waxa arintaasi si adag u beeniyay maamulka degmada Baraawe ee caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. gudoomiyaha degmada Baraawe ee caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cumar Sheekh Cabdi Shafaane oo wehelinayay taliyaha ciidamada booliiska ayaa waxa ay maanta booqasho ku tageen eelboorka degmada Baraawe iyagoona halkaas shir jaraa'id ku qabtay. taliyaha ciidamada booliiska degmada Baraawe Dhamme Ibrahim Aadan Cali ayaa ugu horreyn goobta ka hadlay waxa uuna sheegay in eelboorka degmada Baraawe uu yahay mid wanaagsan isla markaasna ay tahay arinta baraha bulshada lagu faafinayo wax bulshada lagu marin habaabinayo. inaan xaqiijino barnaamijyada lagu faafiyay Facebooka social media caalamka lagu faafiyay in airportku biyo qaaday xitaa barnaamijka biyo dhex fadhiyo laakiin taas inay been ay tahay aan cadeynaynaa ka booliis ahaan oo gudoomiyaha degmada kaayo keenay halkaas aan dheyn ku aragnay iyo Amazon wada jirno runtii barnaamijyada booliis shacabka mu wanaagsan inay faafiyaan airportka hadda waxaa loo dhisay airportka galbeed gaar ahaan Baraawe ku nool dhammaan Soomaalida ku nool loo dhisay airportkana wuu shaqeynayaa shaqadiisa ay time waqtiga sababta loo shaqeynayaa waxaan cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed barnaamijyada ay fulinayaan qaarkood waxa ay ka helayaan aan garan karin weli laakiin waxaan arkaynaa naga runtii inay yihiin nabadiid kuwaasoo ay la shaqeeyaan marka shabaab ay la shaqeeyaan runtii waxaan faraynaa marka inay waxaas ay ka waaxdaan hadday ka waaxdaan runtii waxaan u maleynayaa inaan ka daba tegi doono haddii ilaahay aan horkeli doono sharciga si toos sharciga horkeli doonaa insha allahu tacaala wixii quseeyana marka halkaas la weydiin doono haddii ilaahay waxaan leenahay degmada u dheeraa gudoomiyaha dadka raacaya in ay ka leexdaan ay ka waaxdaan waxyaabaha qaarkood ay sameynayaan wax u inay hubsadaan teeda kale security-ka Amazon qaabilsan booliiskana sidoo kale waa ku mid yahay halkaas joogaa SNA way joogtaa marka waxaan rajeynaynaa inay ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha qaarkood ay ka fogaadaan wixii markaa shabaabahna waa la dagaalmayna insha Allah waxaan u taaganahay Baraawe aan joognaa oo runta u taaganahay in aan la dagaalmayno shabaab. dhanka kale duqa degmada Baraawe ee caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna gudoomiyaha degmada Cumar Sheekh Cabdi Shafaane ayaa waxa uu sheegay in bulshada laga daayo marin habaabinta isla markaana eelboorka degmada Baraawe uu yahay mid aad u wanaagsan wax biyo ahna aysan dhigan. waxa uu sheegay gudoomiyaha in diyaarad ay soo caga dhigan doonto maalinta berito isagoona sheegay in bulshada indhahooda ay ku arki doonaan. sida la xumay shalay waxaan arkaynay baraha bulshada eelboorka barnaamijka ay dhankiisa ku socoto runtii waa arrin ayaan daraa shacabkii in la qalfalbiyo ama shacabkii in laga dhaadhiciyo eelboorkii halaysan yahay ama eelboorkii loo warqaaday ama tarimada ama meesha oo runway biyo fadhiya runtii waa taa arrin oo nasiib daro ah xaqiiqatan hadda waxaan eelboorka hadda waxaan kala hadlayaa waxaan ognahay annaga eelboorka wanaagsan yahay eelboorka diyaarada sida iga karto oo diyaaradna ka dhoofi. gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi Shafaane ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin warar been abuur ah isla markaana dadka lagu marin habaabinayo. waxay cadeynaynaa oo tusayna eelboorka sax yahay wax qaldan aysan jirin laakiin meel oo ka baxsan eelboorka wax yar oo manaabiiro oo maqaadir Allah ay ku imaadeen oo arayar oo mana ka jeexjeexmay marka taas inta la soo qaaday ummadda laga dhaadhiciyay in eelboorkii oo manaabiyo fadhiyo waxay cadeynaynaa in eelboorka manaabiyo fadhiyo oo hadda anaan taageeraan ka dambeeyay ka hadlayo waxa eelboorka nasiib ah u yeesheen dadka dadweynaha ku dhaqan degmada Baraawe waa arrin oo maasha Allah isdii karno Baraawe maanta inay tahay meel oo si official loo imaan karo dowladda ay leedahay oo ka dhoofi karaan halka soo jeedaan xaqiiqatan arrinkaas waxaa mahad gaar iska leh dowladda federaalka Soomaaliya xafiiska madaxweynaha ilaa xafiiska prime ministerka iyo cidda oo hooseeso iyo waxaa kaloo mahad gaar iska leh dowladda Koonfur Galbeed ugu horeeyay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed oo dadaal badan iyo juhdi badan ay ku bixiyeen eelboorka si Baraawe loo leeyahay eelboorka runtii Baraawe maanta waxaa ka jirta eelboorka wanaagsan ay leedahay.